nabadgelyo xalane xarunta hoogga iyo halaagga ee qarsoon caruurta la xado maxerada xalane ee amisom ayaa la geeyaa mabajaajlayaasha qaar ayaa caruurta xada una geeya shakhsiyaad ku sugan xerada xalane ee aan la geli karin maxaadan ogeyn oo ka dhex jira xeradan gaasa ku lug leh iibinta caruurta iyo xubnaha jidhka bila'aadamka israac la'aanta dalkeena ayaa qayb ka ah waxa ka dhex socda xarunta xalane warbixintan waxay isdultaagaysaa magaalada aan la aqoon waxa ka dhex socda gudaheeda iyo dibaddeedaba balse marka hore muuqaalka like site si ay u gaarto dad badan oo aan jecelnahay una digayn xarunta xalane ee amisom waa dawlad ka dhex samaysantay muqdisho waxa degan hay'ado aan diiwaangashaneen hawshooduna aan la ogeyn waa meel xiran qofna aan u geli karin xitaa madaxda dawladda taasi waxay ka dhigtay in caruurta la qalanayo iyo kuwa keliyaha iyo beerka lagala baxayo iyo kuwa la dhoofinayaba inaysan cidna ka war helin sida ay caddaysay haweenaydan oo la qabtay iyadoo caruur xadaysa مناسب محمد عبد العزيز ما سنتهاي سيدا أتلمانتي وحلاقي عبا مالين كستا ساعدها كجرا إنان قابلة الصوماليات وإلى سو حريري سيدا درادينا سيابا كلا دوان عرورتو دوكا مقينين قطرت وين دادكو إسو كبرا روكسنين إكجرت مقالة مقدشو كنا صحابسان عرورتا لوايو أما سيابا كلا دوان هذا الهين تهضا إلا حجرت إن عرورتا لقاتو أو كوحي أي كقنعصتو ayaa magaalada muqdisho qatarteeda ay ka jirtaa sidaan mar kale ku celinayana waa in dadka Soomaaliyeed badankooda aysan ku baraarugsaneyn arrintaas waxaana taasi ay ka dhalatay in adiguba aad bilowdo barnaamijkan sida daraadeedna aniguna aan marti ku noqdo oo ay martinimadeedu qayb ka tahay maadaama page-kayga maalmo badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku arkeen in qatartaas iyo dad badan oo la baafinayo oo waaweyn yar isugu jira kamida gabar Soomaaliyeed oo la ii sheegay in iyadoo la arkayay inay mooto ka raacday jidka warshadaha 3 maalmood markii la waayay kadib ayaa gabadhii isla goobtii laga qaaday sheegtay in lagu soo celiyay gabadhu sidoo kale waxay sheegtay in aysan aqoon goobta la geeyay laakiin xilliyada qaar oo ay soo naaxday waxay sheegtay in arkaysay dad badan oo iyadoo kala ah oo goobtaas lagu hayay gurina uu ahaa kuna yaalay magaalada muqdisho sida ay sheegaysay waxaana ay sidaas oo kale tilmaantay gabadhu in halka lagu hayay aysan xitaa ahayn meel magaalada ka baxsan oo ay xitaa ku qiyaasi kartay qiyaasteeda markay adeegsatay cadaymo aan helay waxay muujinayaan heshiisyo beenaad lagu hoogayo shacabka xerada xalane waa meel lagu dhibaateeyo shacabka dhibaatooyin badan ay ka dhex socdaan walaal Munasir oo waxaan ka codsanayaa de marka hore privacy in ay ilaaliso laga yaabo darintan in aniga dhibaatay keento tan kale de anagu xarumo badan baa jira laakiin xalane waan deganahay guud ahaan hoteelada muqdisho iyo meelo badan oo magaalada ka mid ah iyo guud ahaan geeyiga Soomaaliyeed oo dhan baynu ku daadsannahay so waxani waa wax iska jira dunida dhan bay ka jiraan laakiin wali dadka Soomaaliyeed baan moodaa in maaragtay aan soo gaarin dadka qaar in xubnooda iibsadaan duruuf baa ku kalifta qayb si weeyaan marka xalka sida weeyaan walaal xitaa waa meel dharaar cad lagu dhex dili karo cidina aysan wax iska weydiinayn qaraxyada amni darrada iyo magaalada oo la soo geliyo waxyaabaha maanka dooriya xalane waa budhiga intaas oo idil sida gobolada degmooyinka ilaa heer tuulo gaaray wuxuu ka soo galaa wadanka dhinaca xuduudaha bariga baduu ka soo galaa ayraboorada xalane waa ka yimaadaa xalane isla xisaabtan dhaba ayay u baahan tahay haddii kale maalin kasta aan ku jirno dhibaatadan inay haysatay aan dhammaadka lahayn